waxay geystaan falal dambiyeedyo kala duwan oo ka mid ah dhicitaano bangiyo waaweyn iyo kuwo yaryarba. Waxay kaloo jabsadaan akoontiyada kala duwan ee social media oo ay leeyihiin dad mas'uulo ah iyo kuwo shakhsiyaadba. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa waxa ay yihiin hackers. Assalaamu calaykum, soo dhawaada daawadayaal. Halkani waa Xaydar Media. Ugu horreyn aan isweydiino, waa maxay hackers? Hacking waa ficilka ka faa'iidaysiga nuglaanta ama hagardaamaynta nidaamyada kombiyuutarka ama shabakadaha si loo helo marin aan la fasixin oo ku saabsan xogta. Taariikh ahaan, ereyga hacking had iyo jeer laguma xiriirin falal sharci darro ah. Waxa uu ka soo jeedaa xiisaha dadka doonaya in ay fahmaan oo ay hagaajiyaan teknoolojiyadda. Si kastaba, horumarka da'da dijitaalka ah, hacking wuxuu u qaatay macno taban oo la xidhiidha dambiyada internetka. Hacking waa mowduuc aad u ballaaran oo leh taariikh dheer, noocyo kala duwan iyo saameyn weyn oo ku leh bulshada casriga ah. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan hackers iyo hacking. Hackers waxay u kala baxaan noocyo badan, balse halkan waxaa idinku soo gudbinayaa afarta ugu caansan oo waxayna u kala baxaan sida tan: White Hat Hacker, Black Hat Hacker, Grey Hat Hacker, iyo Red Hat Hacker. Ugu horreyn ku hormarna midka koowaad ee ah White Hat Hacker. Kuwani waa kuwa u shaqeeya shirkadaha si ay ula socdaan oo ay u sugaan nidaamyada amniga ee kombiyuutarada. Waxay sameeyaan tijaabooyin amni si ay u helaan jileecyada meelaha nuglaanta ay ka jirto ka hor inta aysan helin hackerska xun. Black Hat Hacker. Kuwan waxay jebiyaan nidaamyada kombiyuutarka si ay u sameeyaan falal sharci darro ah sida xatooyada xogta, faafinta malware-ka iyo burburinta nidaamyada. Ujeedkoodu waa inay helaan faa'iido shakhsiyadeed ama wax ay u dhimaan dadka kale. Grey Hat Hacker. Kuwan waxay ku jiraan meel u dhexeysa White Hat Hacker iyo Black Hat Hacker. Waxay jebiyaan nidaamyada kombiyuutarka iyagoo aan fasaxaysan, laakiin ma laha ujeedooyin xun. Badanaa waxay sheegaan jileecyada ay helaan iyagoo rajeynaya in lagu abaalmariyo ama in laga saxo dhibaatada. Red Hat Hacker. Waxay si gaar ugu lug leeyihiin la dagaalanka Black Hat Hacker. Waxay isticmaalaan farsamooyin adag oo mararka qaar sharci darro ah si ay u burburiyaan howlaha sharci darrada ee Black Hat Hacker. Hacking wuxuu leeyahay taariikh dheer oo soo maray heerar kala duwan. 1960-meeyadii, hacking wuxuu ka bilaabmay jaamacadda sida MIT, halkaas oo ardaydu ay tijaabinayeen kombiyuutarada si ay u arkaan waxa ay qaban karaan. Waxay abuureen barnaamijyo cusub oo lagu magacaabi jiray hacks. 1980-meeyadii, waqtigan hacking wuxuu noqday mid caalami ah. Buugaag ayaa laga qoray sida The Hackers Handbook buugga loo yaqaano, iyo filimada sida War Games ayaa sare u qaaday xiisaha ku saabsan hacking. 1990-meeyadii ilaa 2000, waxaa soo ifbaxay kooxaha hackers oo caan ah sida Anonymous iyo LulzSec. Xilliyadan waxaa sidoo kale sameysmay sharciga kombiyuutarka Computer Fraud and Abuse Act sida looga hortago falalka hacking ee sharci darro ah. Noocyada weerarada hacking-ka. Hackerska waxay isticmaalaan farsamooyin kala duwan si ay u jebiyaan nidaamyada kombiyuutarka. Farsamooyinkaas waxaa ka mid ah: 1. Phishing, 2. Malware, 3. Distributed Denial of Service oo lasoo gaabiyo DDoS, 4. SQL Injection. Aynu ugu horeyno midka koowaad ee ah phishing. Weerarkan wuxuu ku lug leeyahay dirista emails ama fariino been abuur ah si loo khiyaamo dadka inay bixiyaan macluumaadkooda gaarka ah sida ereyada sirta iyo lambarada kaararka bangiga. 2. Malware. Waxaa ku jira barnaamijyo sida viruseska, wormska iyo trojanska oo loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo nidaamyada kombiyuutarka ama ay xadaan xogta. DDoS, Distributed Denial of Service. Weerarkan wuxuu ku lug leeyahay ku qaadista website ama adeeg internet oo tiro badan oo codsiyo ah si loo joojiyo shaqadiisa. SQL Injection. Weerarkan wuxuu ku lug leeyahay gelinta koodhka SQL ee nidaamyada webka si loo xado xogta ama loo beddelo. Saamaynta hacking. Hacking wuxuu leeyahay saameyn weyn oo ku saabsan nolosha casriga ah. 1. Amniga internetka. Weerarada hacking waxay sababaan in shirkado iyo dowlado ay xoogga saaraan amniga internetka iyagoo maalgelin ku sameeya tiknoolajiyadda iyo khubarada amniga. 2. Xogta gaarka ah. Weerarada xatooyada xogta sida
kuwa dhaca shirkadaha waaweyn in dadka loo baahan yahay inay si taxadar leh ula dhaqmaan xogtooda gaarka ah. 3. Ganacsiga. Weerarada hacking waxay saameyn ku yeelan karaan ganacsiga iyagoo keenaya khasaare dhaqaale iyo dhaawac sumcad. Sidee la iskaga ilaalin karaa in lagu hacking gareeyo? 1. Isticmaal furayaal adag oo gaar ah. Samee furayaal adag oo ay adag tahay in la saadaaliyo. Isticmaal xarfo waaweyn iyo yaryar iyo lambaro iyo calaamado khaas ah. Ha u isticmaalin furayaal isku mid ah meelo kala duwan. Oo adeegso accounts-kaaga kala duwan waxa loo yaqaano two-step verification. Sidoo kale barnaamij walba oo kugu jira cusboonaysiin update garee. Ka digtoonow emailada iyo linkiyada shakiga leh. Isticmaal barnaamijyo antivirus ah. Sidoo kale markaad isticmaalayso Wi-Fi public ah, isticmaal barnaamijka loo yaqaano VPN. VPN-ka waxay qarisaa xogtaada marka aad isticmaalayso Wi-Fi-ga dadweynaha. Tani waxay ka hortagaysaa in xogtaada si fudud loo xado. Ka fogow soo degsashada barnaamijyada aan la hubin. Adigoo raacaya tallaabooyinkan, waxaad si weyn u yareyn kartaa halista aad ugu jirto weerarada hackerska ah inaad ilaaliso amnigaaga dhijitaalka ah. Waxay ila tahay inaan idinku dheereeyay intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar sidoo kalena nagu soo biir oo subscribe garee channelka. Mahadsanid.